أصحابي ألعبت ما شاء الله ثاني وبسلاتي أقدر نسوي حنايا. بسم الله. دقيقة علس. فعلا بسلاتي ما شاء الله إنه بعد ما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمانتي وإذن سلام يا وشيف مهد. ما أنت شيفك وكوهد لي أركي دونتان إن شاء الله. شان لوقادون إكريهين سواحلي إنجليش أف عربي سويدش يا أف صومالي وأنا أنكر شيء. لغة صومالي ونفتر كده سدح لها جدود له وماي إن شاء الله يرغوي يرحمر marka insha Allah luqadahan ku hadli doonana insha Allah ee waaweyn waxa kamid ah macnaha waxa weeyaan taariikhii wadamadan ku soo noolay oo soo koobay insha Allah waxaan ka bilaabay insha Allah luqada Swahili ka bilaabaya mimi nilikuwa nimekaa Kenya miaka 3 ilikuwa mimi nafanya kazi hoteli inaitwa Nomad Palace Hotel. Hiyo hoteli ilikuwa mimi napiga chakula huko, ilikuwa mimi ni mbishi. Mimi nimeishi Jam Street. Kutoka Jam Street kwenda kwa kazini barabara iko na shida. Polisi watakushika, watakwambia wewe kijana leta kitambulisho chako. Kama wewe hauna kitambulisho ni shida. Lazima utalipa pesa. Na kama wewe hauna pesa utalala Bangani police station. Ama mara mimi nasema mimi ni Mkenya. Wewe ni Mkenya, okay, umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Garissa. Garissa pande gani? Garissa ba Iskadak. Wewe usiniletee, ongea na watu. Polisi nyewe atakupatia simu, utapiga na watu yako. Utasema, "Wari Ali, walikuja Kenya kala lagikan." Polisi wa Kenya ni mimi sipendi polisi wa Kenya, lakini watu wa Kenya ni watu mzuri sana. halkaas waxaan kaga bahaynaa luqadii Kenyaatiga, waxaan galaynaa luqadii Carabiga. أنا عشت في السعودية تقريبا، عشت في السعودية 4 سنين. كنت أشتغل فيها حراج اسمه حراج أمير مدعم. كنت أركب المكيفات، كان أسوق السيارة صغيرة اسمها دباب. مرة يعني تركب المكيف الزبون يقول لك ما عندي فلوس روح. يعني ممكن انت عندك انغامه مزور، رغزه مزور، ما تقدر تسوي مشاكل، ما تقدر تسوي ولا شيء. تقول له اوكي راح ترسل لي فلوس، يعني راح تعطيني الفلوس بكره. وين تعرف بكره؟ تنزل ما راح يعطيك ولا شيء. يعني شعب حقهم نص زباله نص كويس، شرطه حقهم حكومه حقهم 80% زباله. يعني انت اكزامبل ما عندك انغامه، عندك اطفال 4 أطفال و5 أطفال، عندك مرة مزوج، انت مرتك حامله، راح تروح بالتحت بدك تشتري شو اسمه حليب او شيء، راح يمسوك شرطه. اذا ما عندك اقامه يحبسوك يرحلوك. لو تقول لها يعني انا عندي اطفال، انا عندي زوجه، يعني راح يصير يعني معيشه حقهم يعني صعبه، ما يسمعوا مني ولا شيء، راح يرحلوك. halkaas waxaan ugu bixinaa Carabigii insha Allah. hadda waxaan galeynaa haddana luqadii Swedishka. Vi kan börja på svenska nu. Jag har bott i Sverige nästan 7 år. Jag har jobbat olika jobb. Jag har jobbat i Stockholm, jobbrestaurang, East African restaurant, Abu Riyad restaurant. Jag har lagat där mat. Jag har kört som heter Sundsvall Express. Jag har kört medicin i Stockholm. Jag har jobbat vad heter det, lager. Svenska människor, de är bästa människor. Sverige, det är bästa land i världen. De kan lära dig utbildning. De kan lära dig hur ska du fortsätta ditt liv. Sverige, jag gillar Sverige. halkan waxaan kaga baxay luqadii Swedishka. Hadda waxaan galaynaa marka luqadii Ingiriiska insha Allah. Hey guys, today I'm going to teach you how to make whole roasted chicken the best way. Somebody they was telling me, Mahad, you cooking very good food, but write down what are you put on the food. Yes, I will write down everything
everything I will write down inshallah today. And you make sure you make like, share and subscribe. Thank you guys. hadda waxaan kusoo laabanaynaa marka Soomaaligii lahjadii Soomaaliga oo maaragtay maymayga iyo waqooyiga Hargeysa ku noolaa jira وعردان Hargeysa ku noolaa waxaan ku wada jiray taxi waariye marmarka qaar waxaad qabsanaysaan qolooyinka ka shaqeeya ee boorka tagaasida waariye kaan reexa marka miyaad imika nagu daysaan waardo xagaa haddaan reexa mar haydoon yaa miyaad xiga qaadi kartaa halkaas gurun isku marsiinaa marka luqadda reexa marka ano xamar maro haayo oo la fiyo haayo ajiji jugsiis waa ka jiit muku jeesteynino ya maamay wadaadu may saandan in kafiri waxayd hooba ada in saarani like share lahana may saandam xaasinimadan talagta may ay tani wadaayo ifahmo hayta ba may in saarada like isaar inshallah share isaar asxaabta dhamaantiin waan salaamaya haddana waxa daawanaysaa inshallah sidaan u sameynay digaaga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh oo waxaan iga hilmaamay waxa maasha Allah zoom amaanta ka dham ka dhahay waxaan ka duubaay waa saacadaas saacadan waxaa ku sameyn kartaa camera qof meel dad ku qarisid ayaa saacadan maaragtay ka shidi kartaa video camera ayada halkan ka isticmaalaysaa mobile content halkan video camera ka shidi kartaa kan saacadan waxay kale ku fiican tahay maasha Allah saacadan niyar amaanaya waan saacadan jeclahay waxay kale ku fiican tahay waxa waay adoo iska jiifo oo maaragtay film iska fiirsanayo remote-kaaga iska haysto oo cabaar 3 ama 2 saacadood daa fadhiisto dhaqaaq aan sameyn waxa ku soo dhacaya message ay ku leedahay mahad waxay kala dhaqaaq sameey example wadanka dadku waxa ka naxay waa warqad baa yani example ku soo dhacday warqadii wad ka naxday oo kale yani wadniya jag ku dhah waxa ku leedahay maanta stress yar ku furmay waa saacad waa computer gacantaada ku xirnaaday yani dhiigaaga iyo gudaha way ka sheekeen gudaha wixii markii gudaha uu qabo waxyaara orday gym yar soo sameysay waxay ku leedahay maasha Allah maanta shaqo fiican aad sameysay marka asxaabta hore saan kugu sheegay insha Allah barnaamijkan kaliya kuma ekaan doono cunna karin yani barnaamijyo xiiso leh ayaan soo wadnaa إيدا إن شاء الله لبن نف أو أريح أيام مارتي كوبانسنا أني دانيرا أصحابتا إن الميل بنانا الله تقنو ونقريلينو نف كيو مدحي سقبا فردية because وحوي ومحي هروس ميجري نف كسان قريلين يا سوسيدي إن شاء الله يوتيوب كونو عيدي سوديك دونا أصحابتا قارنو يوري دونا إن شاء الله يفاميلي دا بنان كسر وعنو دونا بريس في عنو وكري دونا أولي رادا الله سوام رايس الله سوام رايس ومحي وصومال رايس ولا سو قابي marka asxaabta insha Allah wada jeclay dhamaantiinba Ramadan Mubarak isaar like share isaar insha Allah maanta kasto waxaan waay barnaamijkeena hadal ay u batay laakiin insha Allah jikinkana waan maartay sameeynaya si fiican baan sameeynaya laba digaag oo uur la maartay ayaan sameeynaa oo kun iyo wax kasta gudaha kaga jira insha Allah waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta soo idin sheegay labadii xabo digaag ee waa digaag aad u waaweyn ma sha Allah Allah toontan waa toon laba xabo oo toon waaweyn ah oo maartay sameeyay kan waa sinjibiil qudaartan waa qudaarta aan digaaga dhaxda ka gali rabo oo kuntan wili waa ciiriin aydan laakiin digaaga dhaxda ka galinaya waan ku talaya insha Allah haddana waxaan bilaabanaya wixii aan isku darleynay waxaan ka shidi lahayn halkan waxaan ku hayaa laba qaando oo maraq digaag ah si fiican aan u buuxiyay halkan waxaan ku hayaa saliid aan ku shiidi rabo halkan waxaan ku shubayaa hadduu ilaahay ka dhigo curry powder oo laba qaando waaweyn asigana si fiican aan u buuxiyay halkan waxaa ku jiro toon soo ujeedaan laba xabo toon waaweyn waaye 2 big piece waaye toonta halkan waxaa ku jiro waxa weeyaan soya sauce saad arkaysaa hal qaandaan ku darayaa kaliya isiga waxaan ka rabaa color oo kaliya waxaan ku darayaa insha Allah hal qaando laba qaando oo vinegar marka waan shiidi doonaa hadda markaa in yar oo biyo ah wixii yar adkaaday
marka wax yar waxa loo baahan yahay jilaac badan loo baahan adeeg badan loo baahan dhaxada loo baahan yahay si fiican u shiidanay ma sha Allah si fiican inuu ku soo baxday sadarkiisa markaas alaabtii korka laga marin lahayd digaaga si fiican isugu shiiday gacmaha mar walba you have to wash hand si fiican waa gacmaha u dhaqdaa marka hadda digaagii spices kana mari doona insha Allah oo dhinac walba ka mari doona si fiican gudaha ku aruurinaya horta digaagan waxaa fiicnaa lahayd in aan la dhigno muddo saacad ah laakiin maanta waqti uma hayno oo insha Allah hore ayaan ka gelinaynaa ofanka laakiin waxaa ku fiican inaad la dhigtid saacad space ka soo gudaha ugu galo spices ka markaad marisid waxaa fiican inaad la dhigtid spices ka ilaa iyo saacad marka spices ka dhexdu si fiican ugu galayaa oo dhuuqaya digaaga spices ka dhuuqaya ma fahanti marka digaaga marka ku dartid oo vinegar ku dartid cusbaa ku darin because digaaga wixii dhanaan zaid ka noqonaya haddana qudaartii digaaga dhexda ka gelin lahayn nutirkooda ayaan spices ka marsanaynaa ukunta saan arkaysaan waa ceeriin oo shabadii shirkaddaa saaran because ukunta dhashaa lagu celinaa ma fahanteen haddana waa qudaartii hadda ku shubaynaa haddana saad arkaysaan kalena sidoo kale iyadana inta la gelinayaa marka waan tolayaa marka dun iyo cirbadii caadiga ahayd ayaan ku tolayaa arkaysa soo ma يعني waxaa ku talaysaa duntii cirbadii caadiga ahayd maaragtay wax dhib ah mala dunta wax barbalena ma lahan ku tali kartaa أصحابتي ما شاء الله سان طلب أردتان ويطلنت هاي سادين شيء دقاق أورلان ما أنت سمعنا يا ورك هذا الأوفن كقلنا إن شاء الله كنت أنا تكلي جيسا كوري هوسا كلي جيسا tan muhiimeed inaan ii sheego qaybtan hoosena waa inaad u dhigtaa labada qaybood waa inaad u dhexaysaa saxan because dhiicaanka digaaga kasoo dego hadduu hoostaas hoose kaaga dhaco guri dhan baa qiiq kaa noqonayo marka insha Allah waa kaasa saxankan u jeedaa waa u dhigay dhiicaanka hadda waa kasoo wada bilowday marka waa muhiim inaad taas ii sheego waqtigan waxaad ka dhigaysaa insha Allah 2 saacadood 2 hour ayay u deynaysaa insha Allah bidnillaahi alkariim markaas ayuu noqonayaa guduud iyo biseel insha Allah asxaabi alaabti ma sha Allah saanay u bislaatay haddaan soo bixinayaa بسم الله
دقيقة علس سفعنا بسلاته ما شاء الله إنه بعد ما صحابي لابت ما شاء الله ساني كسب بحذي مركا يولسي لابتي قدرت بديها كوجيتين انت يا ريت او انت طلعنا ونكبحنا وهلكاس اسك دغينا وما باهنا انتاس مركا هذا ما شاء الله هو بسلاتي سيان عادي هن قدرتي بيو كل حترترتي انما عاد ما كنت واقف سو حسار الواكاس يا إنما عاد ما كنت كل نواتنا مركا